xildhibaan daahir amiin jeesow oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka golaha shacabka Soomaaliyeed oo shir jiraad ku qabtay Muqdisho ayaa waxa uu ka hadlay dilka xalay magaalada Kismaayo loogu geystay Suldaan Rashiid oo ka mid ah odayaasha dhaqanka maamulka Jubbaland. xildhibaan daahir amiin jeesow ayaa sheegay in kooxda dilka geysatay ay ahaayeen rag ku labisan dharka ciidamada Jubbaland, wuxuuna sheegay in dilka suldaanka laga soo abaabulay madaxtooyada maamulka Jubbaland. annagoo dhan iyo dawladda federaalka ee sawir Allah ka siiyo suldaanka waxaa dilay askari ka tirsan ciidamada Jubbaland oo labisan qori AK wato. dadka qaar ay leeyihiin waan garanaynaa, warar badan baa ka soo baxay, laakiin baaritaan dhab ah ayaan dalbanaynaa in la sameeyo. waqti maqrib ah asagoo salaada maqrib ku dukaday masaajid ku yaala xaafadda oo gurigiisa ka degan yahay ayaa la dilay. Suldaan Rashiid waa dhimiyey, gacanka xaq daran ayaa la dishay. tuhun waxaan qabnaa in ninkii dilay maanta uu ku qadaynayo oo ku quraacanayo magaalada Kismaayo dhexdeeda. waa nasiib darro, waa uur ku taallo, waa waxaan lagu kala badbaadi karin, waa wax aan xaquuqda iisaanka iyo bilaadanimada iyo muxuu ahaa jiritaanka Jubbaland u daran. waxaan ka codsanaynaa in baaritaan dhab ah hay'adahaas aan sheegay, kuwa dawladda federaalka, beesha caalamka, qaasatan xeer ilaalinta Soomaaliya. Axmed ayaa dilay ninka la yiraahdo magaciisa. dhanka kale xildhibaan daahir amiin jeesow ayaa dawladda federaalka Soomaaliya ugu baaqay in suldaanka lagu dilay Kismaayo ay baaritaan ku sameeyaan, isagoona sheegay in Suldaan Rashiid dhowr jeer maamulka Jubbaland ay ka soo masaafuriyeen magaalada Kismaayo. Axmed maalintii Jubbaland uu soo galay cidda ugu horeysay oo soo tarxiilay waxay ahayd Suldaan Rashiid. 3 sano ayuu reerkiisa ka maqnaa oo xamar uu nala joogo asagoo exile oo la soo masaafuriyay. axmed oo meel fagaara oo ka qodbeynay wuxuu ku yiri waxa aan dagaashanahay odayaasha dhaqanka waxa ka jira Rashiid meel fagaara oo marqaati leh oo maanta odayaashii dhaqanka ay wada joogaan oo ay qaar intii nool dad waa dhinteen oo Rashiid dad salaadiinaha ka horeeyay oo la dilay. laakiin inta nool maanta marqaati iyo furaysa inuu hadalkaas yiri. Kismaayo doonay ku jirtaa dad badan oo wax gal aan innocent igo ayaa la dili doonaa. beesha caalamku haddii aynan farxad gelinaynin shacabka Soomaaliyeed dhibaatadiisa arrintan waxa ka qabato, waxa lagu soo rigi karaa cunun qabatay, waxa loo adeegsan karaa Interpol, waxa loo adeegsan karaa shuruucda caalamiga. ma aha waa genocide waxa Kismaayo ka socday. ma aha qof la nacib yahay la dili iyo qofka allaale iyo qofkii fikirkiisa ka soo horjeedo. waxa way waa afka loo soo duubanay. hadda Rashiid afkaba looma soo duubanin, si bareera askari labisan ee dadka qaar ay leeyihiin waa naqaana. xogtaasna waa aruurin doonaa, waana la wadaagi doonaa cid allaale iyo ciddii interest gareynaysa.